kala socoto xanaha jacaylkii baasaboorka dahab shil ka bil qaado xalqadiisa afraad waa qalinkii iyo tibintii Cali Kaamil ka daabo YouTube-ka Kaamil Show TikTok-ka Facebook page-ka iyo Instagram-ka fadlan like-ta share-ta iyo subscribe-kaba waa dhankiina isbeddelka Amiir ku dhacay waxa la oran karaa afkii baa juuqda gabay indhihii baa jaleecada daayay harkiisa waxa ku lamaan aragsan biyaha koobka uu ka cabo sharaabka wuxuu ka dhax arkaa aragsan sida inay ku dhex jirto koobka waxa helay Amiir jacayl daran jacayl waa dhibilo waa dhamaala sidayo u dhalaalinaye dhibiyaraantu igu helay madadamiya untu adadaya nabarad akhtaradu ka quuste adadaya nabarad akhtaradu ka quuste cidna uma oga wuu istiilayaa mooyee agajiid ayuu ku yimaadaa iskuulka maalmaha qaar waxaa sharad u soo bandhigay Haaruun oo ah shabeelnaagood kana soo jeeda qoys ladan aaminsan lacagta inay tahay furaha qurubta la furi waayo tan lagu furo Amiir ayaa ka aqbalay durba sharadkii Haaruun oo dhiig cusub iyo dhiirigelin u noqday waxa la isla qaatay muddo 7 cisho qof kasta fursad in la siiyo qofkii guusha raacdana waxa loo aqoonsan doonaa inuu yahay aabihii jacaylka dhammaan asxaabta korjoogtada marqaatiga ka ah labadan mucaashaq waxay u tuureen shilin xarash iyo madax qofka ku horeyn doona nasiibku wuxuu ku beegay Amiir natiijada jawaabta waxa la dhowrayaa muddo hal usbuuc ku siman ama deeq ama dayro wuxuu kala kulmo boqorada aragsan inuu la wadaago asxaabta kale habeenkii koowaad Amiir wuxuu la yimid shax wareer ah durba wuxuu helay nambarkeeda oo uu ka wacay walaa xaaga cidna kama qabanayso hadda kolka iga qaban layd kuma ilaaweyne farintayda adigoo arkaa igu adkaysaaye aniguna onlinekaagiban kuwa wareegaaye orad iyo jawaabtaadiban aad u sugayaaye habeenkii ku xigay wuxuu ugu diray WhatsApp nambarkeeda fariin dhambaal jacayl ah oo dhuux iyo wadnaha taabanaysa nasiib darro may furin bakshadii qaabkaaga wacan iyo markaad qaada laafiyaha qof walba qushuuco ka daba dhaqaaqo quruxdaada khaaliga qiyaastii la deefiyay qaadir kugu manaystay ma mid lagu qorsheeyaba dadku qaar waxay yidhaahdaan waa maxay qurayshtan ma fartaa lagu qoray habeenkii saddexaad wuxuu gaafmeerayay agagaarka gurigooda Sheekh Madar ee u dhow qudbiga sidii inuu yahay gaarkii xaafadda nasiib darro umay soo bixin dibadda maalintii afraad wuxuu buuggeeda ka helay nus saacaha fasalka dhexdiisa wuxuuna ku qoray bogga ugu horeeya hees jacayl ah oo ay ka mid ahaayeen weerahan soo socda iyo telefoon nambarkiisa qalbigayga lagu qoray magacaaga oo qudhaa qisadayda keliga haddi lagu qofalay qisadayda keliga haddi lagu qofalay habeenkii shanaad wuxuu ugu diray nambarkeeda fariin cajiib ah oo u dhigneed sida tan waana tan ay ku ogolaatay inay ka furto albaabka Amiir kuna ballamiso gurigeeda habeenka jimcaha soo galiyo horadayda iyadoo ila joogoon janna ku sugan jeclaan lahaaya intaan wadnaha jeexaan ku dhigala gacalo jeexaan ku dhigala intaan wadnaha jeexaan ku dhigalaaye horadayda iyadoo ila joogoon janna ku sugan jeclaan lahaaya intaan wadnaha jeexaan ku dhigala gacalo jeexaan